warjalayaal soo dhawaada war degdeg ah ayaa naga soo gaaray magaalada Gaalkacyo. Haddaba waa sidee xaaladda magaalada Gaalkacyo wararkii ugu dambeeyay ee magaaladaas aynu ka helayno ciidanka Puntland oo afar jiho ka xiray xiradii ay deganaayeen ciidanka BS ee ka amar qaatay dawladda waqtigeedii dhamaaday. madaxweynaha Puntland ayaa dib ugu soo laabtay caawa oo ka degay magaalada Garowe. amarkii ugu dambeeyay ayaa la bixiyay. goormee ayuu dhacayaa dagaal? waxaa laga yaabaa xaaladda magaalada Gaalkacyo marka la eego aaga u dhow xerada oo dhan shacabkii ku noolaa waa ay ka barakacayaan oo caawa waxaa lagu amray inay isaga baxaan. waxaana la iclaamiyay dagaalkii ugu cuslaa maalinta berrita ah inuu dhaco sida qorshuhu yahay. haddaba xogtii ugu dambeeyay magaalada Gaalkacyo israsaasayn kooban oo ka dhacday magaaladaas. xogihii ugu dambeeyay odayaasha dhaqanka oo ka quustay nimanka inay meesha ka soo baxaan oo si toos ah u saxiixay inaan dhiigooda aan loo haysan ciidamada Puntland ayaa qalinka ku duugay. Siciidani waa uu soo laabtay. sargaalkii dagaalka hogaaminayay oo la sugayay caaw Gaalkacyo galay. afarta koono ciidanka waa laga xiray. fiqi iyo sidoo kale taliyihii lugtana Gaalkacyo ayay caaw soo galeen. haddaba xogahaas ayaan rabaa inaan barnaamijkayga ku qaadaa dhigo. xaaladda magaalada Gaalkacyo caawa caadi ma aha, lama dhayalsan karo. waxaa ka dhiman oo keliya inay xabaddu bilaabato. dadku waa ay qaxayaan, jid walba ciidan ayaa ku jira, xabado ayaa iska dhacayo. xaalku caawa waa adagyahay. gaalkacyadeedii hore ma aha. haddaba xogahaas ayaan rabaa inaan isla eegno. waxaan idinka codsanayaa jaalayaal muuqaalkan leegareeya si uu meel fog noogu gaaro. intiina soo jeeda waa xilli dambe. intaasaan idinka codsanayaa. waa muftigii siyaasadda. waa markii labaad aan hawada ku kulanno. taariikhduna caawa waxay ku beegan tahay 28 Julay, inkastoo saacadahan ay isbedeli doonto saacad kadib. magaalada Gaalkacyo sida ogtihiin Puntland ciidankii ugu badnaa ayay keentay magaalada Gaalkacyo. Gaalkacyo waxay foolanaysaa dagaal ayay foolanaysaa. dagaalkaasna waxaa qarash walba ku bixiyay ninka la yiraahdo Xasan Sheekh. Xasan Sheekh waxaa dhibayso nabadda reer Gaalkacyo ay haystaan ayaa dhibayso. Puntland maanta waxaa u tagay odayaashii dhaqanka oo ciidamada Puntland ku dhagay oo yiri wiilasha annaga la hadlayno, hal xabada qosha ka siinina. odayaashii waxay sheegeen nimankii ku jiray xerada inay ka amar diideen oo ay diideen inay ciidamada Puntland isku dhiibaan. sidaa awgeed ciidanka Puntland saxiix baad u qabtaan. nimanka haddaa iska dhicinaysaa, haddaad awood ooga saaraysaan, haddaad caqli kale ooga saaraysaan, annaga waa ka quusanay ayay dhaheen. waa odayaashii dhaqanka beesha Majeerteen ee loo diray inay ciidanka meesha ka saaraan. arrintii markii ay diideen waxaa dhacay amarka seeriga in nimanka meesha laga saaro. isla caawa marka waxaa la sameeyay 3 irid oo muhiim ah ayaa laga xiray. hal albaab ah oo nimanka u furan xerada ay ku jiraan caawa ma jiro. weliba sankaa loo geliyay qoryihii waaweynaa. maaragtay suugagii qorigan kale oo maaragtay la yiraahdo taangiga waxaasoo dhan. marka dhinaca Puntland waxay qorshaysay in maalinta berrita weliba salaada subax inay xabad ku bilaabaan oo xoog ooga saaraan xerada. xeradan marka Puntland maxay u rabtaayoo baahida ay u qabto maxay? horta xeradan garoonkii bay ku agtaala. waa xero istiraatiiji ah. ciidankan waxaa loo dejiyay ciidamo Puntland ay ahaayeen amniga garoonka inay sugaan, amniga magaaladana ay ka qayb qaataan. marka hadday Puntlandnimadii ka baxeen oo ay federaal noqdeen, Puntland waxay leedahay xerada waa inay soo wareejiyaan. federaal dhinaca maaragtay koonfurta magaalada ayay joogaan, waa inay koonfurta aadaan. ama koonfurta Soomaaliya federaalku degan yahay inay meelahaas aadaan ayaa maaragtay loo sheegay. waa diideen oo waxay dhaheen waa diriraynaa. ciidanka meesha ku jirana tira ahaan waxay gaarayaan adigu 300
وعسكري أيال يجي ولي بقى لابتي أوجب بدنايد أو ماشي أوجب شرتي هداي قرية أهان لهايد هداي رصاص أهان لهايد وحصلنا ماشي وكقاتل معنا باورتي وويناء أو دوا كقاتل إذا الإنفنتريا ماشي كتير إذا كبتلان قال كعيب جده هذا شوجنا لبكون وعسكري وكبدين لبكون وعسكري وحنا الله قلت لك هل مر إن حبط بلعبان بتلان وحيات أوجع عروتي إن عاو مجالات قال كعي أي هو ينيانو جدها وقلان تليه إذا كاللقط صومالي قالت نك ليرة إيو وسيركي الدفاع نك ليرة فقه حب عارو إن عاو قال كعي كحو ينيان أي بتلان آد أوجع عروت هذا بقى مدحويني بتلان سعيدني سدق دقة أيو عاود بقول صلابتي مجالات الجروي ولما قور مغربة أيو مجالات كسر دقي عاونا أمر كيسي ود بيجي أيو بحي ما أنت بريتة هذا يصنع علىها أن إذا الله الله يسر حبضوا بلابن ما أنت بريتة هذا يصنع من كاس إسليبين حبضوا بلاب ميسا واللغو بلاب يا أود بانا لقى صاريا بتلا إنه حي بريت تابينيسا أود عيلها عاو مركو ويلاشاس انت واغ بريين اي جانيس هايستان waxaan codsanayaa nin walba nin buu dhalay asaguna ka dhibanaya wiilasha meesha ku xareysan oo wiilal ma jirtaan ama reer Puntland oo beelahaas Puntland degan ka soo wada jeeda xasan ma dhalin kama dhibanayaan hadday dhintaan kuwa kale ayuu qoranayaa oo samaysanaya waxaan leeyahay dadkii dhalay wiilashaas badbaadsada oo ka badbaadsada ciidanka Puntland ka badbaadiyay oo meesha ka saara Puntland dawlad baa ka jira mandate haysata sharciyad haysata ayaa ka jirta amarkeedu shaqeynayo awoodeedu shaqeynayso waa nimankii argagixisada la dagaalay oo ogeyn marka waxaan leenahay wiilashaas la lumiyay meesha ka saara amarkii ugu dambeeyay ayuu siciidani baxshay markuu magaalada Garowe soo galay waxaana magaalada gaalkacyo galay taliyihii ciidanka hogaamin lahaa oo calmiskaad ku maqnaa oo maalmahan la sugayay ayaa magaalada gaalkacyo caawa la geeyay taliyahaas inuu ciidanka hogaamiyo ayaa la doonayay xabaduna maalinta berita ayay bilaabanaysaa haddii nimanka caada qaatayaasha ee calooshood u shaqaystayaasha ee xasan iyo damjidid u shaqeeya aysan isdiibin ama aysan ka guurin meesha ay degan yihiin oo aysan dhinaca galmudug gelin ya inta irid loo furo waliba caawa hal jid uma furna meel ay ka baxaan male laakiin way codsan karaan Puntlandna la jecel badan ayay nimanka ka qabaano niman dhalinyaro ah oo dadka deegaanka ah oo la qalday ayay u arkaan waana si sax laakiin ninka ragga waa inuu dareemaa odayaasha dhaqanka ay tixgelin waayeen dadkoodii bay maqli waayeen xasan bay u shaqeynayaan xasanna taleefanadu ka deensan doonaa markay xabadu ku bilaabato taleefanada ayuu ka deensan doonaa markay xabadu ku bilaabato intaasaan idin leeyahay qodobkaas halkaasaan uga gudbayaa kulley xaalka gaalkacyo weynu arki doonaa sida ay wax isku bedelaan iyo sida ay wax noqdaan waxaan saleeyahay war shacabka ha loo turo war gaalkacyaha xabadeedu hadday bilaabato iyo colaadeedu ma istaagayso muddo badan baa la baadigoobi waqti badan iyo juhdi badan bay u baahnaan war nabadda hadda lagu minto intaasaan leeyahay ninka la yiraahdo xuub caaro ama wasiir fiqi ayaa magaalada gaalkacyo ka degay fiqi su'aal baa la weydiiyay asagoo jaraynay oo gariiray ayuu ka jawaabay ma waxaan Puntland laga cabsan baa balligayso ilaahay baan ku dhaartay waa jaraynaya gaalkacyo jooga jaakadii GSB buu qabaa waa jaraynaya markii la yiraahdo dani baa Puntland baba wuxuu leeyahay wax dagaalamo wad xisbi baanu doorashaanu nimi bari haddii dagaal dhaco magaalada gaalkacyo ka ciidanka Puntland waa awoodaan inay soo qabtaan ninka camanka burburan
وشاكته وزيرك أمني أما وزيرك الدفاع شاكته وير المني هنا وحنا هاي قضين دا سونا عقبة ونا تدع سنة كور هالكان وحنو جوغني يضو ننك ومنافق waxaa laga shaqeeyay oo loo soo dhiibay inuu dab ku shido magaalada gaalkacyo culaadda ka taagan inuu sii hulciyo ayuu ka shaqeynayaa wuxuu leeyahay doorashada gaalkacyo ka dhacaysa uu gelayo maxay doorashaan gelaynaa bule waa been waa kadaa'ib oo gaalkacyo dadka walaalaheena ay codaynayaan oo dadkooda codaynayaan 3 sano kadib in wada noolaashaha daris wanaaga walaaltay أنا وفريد النوادة بقالكعية ضدي كسر شقي وزير كامريكا أيانا ولا هو الشقي وريال ديك بدن بقول ضحي وعقول ضحي ديك بدن نوادة زعر المسؤولية دين وجوكته meel loogu talagalay inay nabad joogto fiqi looma soo direen taliyihii lugta iyo fiqiba waa joogaan magaalada gaalkacyo waxaan leeyahay marka nimankaas gacanta ku soo dhiga haddii bari xabadu bilaabato in la soo qabtaa iyagoo la jeebaysan ummadda la horkeena waa awoodaan ciidamada Puntland intaa waa intaa wixii ka soo kordha halkaan aad ka daawanaysaan xaaladda gaalkacyo nimanka majeerteen ee Puntland Cumar Maxamuud oo degan gaalkacyana waxaan leeyahay iyo si guudba beesha majeerteen ee gaalkacyo degan war waxaan leenahay sharaftiinii iyo sumcadiinii baa lagu soo duulay dani duulaan laguma ah dani waa tagayaa laakiin Puntland waa joogaysaa Puntlandnimadu ma guurayso imise madaxweyne baa isbedelay ciidanku waa haraya calanku waa haraya magacuna waa haraya intaas difaacda oo u dhinta oo sharaftii Puntland soo ceshay oo yaan la fiirin dani baa saasa iyo dani baa saasa intaasaan idin leeyahay waa idin salaamaya jaalayaal muuqaalka sii sheer gareeya leegta la dhaca aragtidiinuna waa muhiim ee qaybta commentiga